Maamulka iyo shacabka deegaan-weynaha Lafoole ayaa maanta isugu soo baxay soo dhaweynta iyo magacaabista guddoomiyaha cusub ee gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax. Qaybaha kala duwan ee bulshaweynta deegaanka Lafoole iyo maamulkoodaba maanta waxa ay muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin in mar kale uu hogaamiyo guddoomiye Najax, iyagoona sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen uga mahadceliyey in markii afraad uu u soo celiyo guddoomiye Najax. Ugu horeyn, qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaan-weynaha Lafoole oo munaasabadda ka hadlay ayaa soo dhaweeyey magacaabista guddoomiye Najax cusub ee gobolka Shabeellaha Hoose. Guddoomiye Najax waxaan leeyahay soo dhawow, gobolkaadi ku soo dhawow, deegaankaadi ku soo dhawow. dhammaan shacab weynaha gobolka Shabeellaha Hoosena waxay u taagan yihiin soo dhaweyntaada. sidoo kale waxaan rabaa inaan oga mahadnaqo maamulka deegaanka Lafoole oo soo qabanqaabiyey xafladan aad iyo aadka u qurux badan. waxaan leeyahay hambalyo. xaqiiqdii waxaa dhab ah haddii ay ummaddaani ku jeclayn gobolka Shabeellaha Hoose, haddii aysan ku jeclayn dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, mar afaraad ma ugu doorteen. mar afaraad siyaasadda gobolka Shabeellaha Hoose lagama maarmo. inaan lagama maarmina maanta ayaad aragtaa, indhaha ku aragtaa farxadda muuqata ku soo dhaweey. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad aan u hambalyaynaynaa guddoomiyeena cusub oo aan siyaasadda gobolka Shabeellaha Hoose looga maarmin. bulshada halkaa ku nool boqolkiiba boqol ay ku taageersan tahay, madaxda degmadana aad aragto sidii u faraxsan yihiin. mudane guddoomiye, sooma koobi karno farxadda iyo hilowga iyo hambalyada aan kuu qabno. waxaan waa u dhahaynaa ilaa adiga xafiiskan aad ka timaado deegaankaaga aad soo dhigato insha allahu tacaala. ilaa wadooyinkii maarata lasayka dheer ilaa degmada afgoynta u dhexeysa waxaa weeyaan maarata shacabkaaga ku taagan insha allahu adeerna qodan iyo maarata gacmihiisa ugu soo dhaweynaya. waxaad dareemi kartaa shucuurta ka muuqata shacabka degmada Lafoole baahida ay ku qabaan, waana ku garab taagannahay. Ugu dambeyn, guddoomiyaha deegaanka Lafoole Nuur Ibraahim Cusmaan Nuur Jiiley ayaa madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen uga mahadceliyey in markii afraad uu soo celiyo guddoomiye Najax, isagoona sheegay in markii afraad guddoomiye Najax looga maarmi waayey horumarinta iyo hogaaminta guud ahaan gobolka. waana aaminsannahay runtii markii afraad dowladda inay ugu maarmi weysay in gobolka Shabeellaha Hoose loo magacaabo. layskama keenin, layskana magacaabin sababo jiro ama maxaa la yidhahdaa waxaa gobolka looga baahan yahay darteed ayaa loo magacaabay. maamul ahaan runtii waxay noo tahay farxad maamulkii ugu horreeyey ee soo dhaweynta guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ka sameeya deegaanka Lafoole. maamul ahaan iyo deegaan ahaan runtii farxad ay noo tahay. xafladdu waxay daaran tahay 3 qodob oo runtii aad muhiim u ah. qodobka koowaad, waxaan leenahay dadweynaha deegaanka Lafoole oo runtii waa berigii saakay ilaa hadda saacaddu ay tahay 2 duhurnimo u taagnaa cadceedda soo dhaweynta iyo qoraxda guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose. waxaan leeyahay maamul ahaan annaga kaligeen ma ahayn, waxaana la qabtay dadweynaha deegaanka degan ay ahayd. waa ku mahadsantihiin. sidaas oo kale xafladdu waxay ahayd mar kale haddaan idhaahdo soo dhaweynta guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose oo runtii dadweynaha deegaanka Lafoole aad ka dareemi karto maanta quruxda iyo soo bixitaanka ay soo baxeen iyo xilliga cadceedda ay taagan yihiin. intaasna waxaa sabab u ah jacayl ay u qabaan guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose. mudane guddoomiye, waxaan leenahay soo dhawow. dadkaaga iyo runtii deegaanka Lafoolena runtii aad baa lagaaga jecel yahay, waana ka dareemi kartaa xafladda iyo maxaa la yidhahdaa dadweynaha sida halkaan ay usoo buux dhaafiyeen. intaas kadib, qodobka saddexaad ee xafladda waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo runtii markii afraad u magacaabay guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose. Maxamed Qadar, Warsan Radio, Shabeellaha Hoose.